السلام عليكم مقعيقي ياسمين واي كسو دبو اسعاتيس سؤال اسو غارت horta kooda horeeto jimco wanaagsan maanta ana jimco ii tahay oo 2 saac subaxnimo gaarin shaqa u socdaa marka waxaan is iraabaa Yasmiin u saar walaalaha su'aasha hal su'aal ali soo weydiiyay oo ahayd wala ii sheegay abaa Yasmiin aniga 3 cunugaan leeyahay xanuunkan uu iga batay sanjir jimicsiga u bilaabay video waxa ku jiro markan sanadka hore bilaabay jimicsiga aan kala go'ay oo garbaha la iga hayay aan xasuustaa marka kooda hore ana waxaan soo saaraa aan dhahaa fiidiyaasheeda kooda hore dhaqtar u tag hal ugu fiiriyo dhaqtarkaaga markuu ku dhaho okay yaa tahay jimicsi waa suubin kartaa soco lagu dhaho kooda hore waxaa lagu bilaabay jimicsiga dadka cusub hal maalin waxa la suubiyaa jimicsi 10 daqiiqo leeh maalinta ku xigto fasaxa qaadanay maalinta ku sii xigto waxa suubinaysa hadana 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo ku bilowday wiiga ugu horeysa saa lagu bilaabaa كبعدين ولا هدفها صعد وحالي إسكا هذا أو ترتيب له ترتيب وصون خنا له مركز جرك وحال ربع إنه برتو ترتيب أهانت لابا ما عليكم بالله ويك دنقوات ويك كل سيدي حتى سمي استرتيب جرجمعسي إيه اللي بربدو وحقوا باهيين ترتيب مدة كلتنا مرة بدنا حقنها استرجم حاول جرك لكلا بحناي وما تنقر بها إيه مركز هاي مركنا لقاها عن كلا في ذناي إيه waxaa isagan xanuunka uu yareeyaa marka taladeeda waxay tahay anigana isoo martay aan xasuusta horta sanadkii hore waa kala go'ay sodonki baanda hadda aan iska soo riday haddaan soo roonaanaya hadda daraad waxaan soo saaray haddaan isku daro aan qaldanayn 80 kadaloobsiyaan soo suubinay labada ajro way kala go'een baan kuma sheegay maalintu waxay fasaxan qaadana saan jeclahay maalintu ku sii xigto waxay noqotay inaan hore ka bilaabo marka jimicsi xanuun uu leeyahay laakiin murqaha waa in la qabsadaan waqti dheer qaadanay aniga sanadka hore dhamaadkiisa camalaan bilaabay waqti dheereen uu qaadan ilaa hadda mar waxa jiro aan leeyahay oo caloosh maxaan suubinay waa xanuun oo saay marka waa ogtahay meelaha ku xanuunayana waa ogtahay ina ka soo shaqeysa marka aniga hadda aan la soo qabsanayo oo waliina xanuun dareemay marmarka qaarkood aan waxaan dhahaa maxay murqahan sanka ugu xanuunayaan markaas waxaan xasuustaa aan is xasuusiyaa aan dhahaa waa ka soo shaqeysa way kula hadlooyaan shaqa ka soo soobisa marka kooda horeeto jimicsiga dadka ku cusub dhaqtarkaaga ku u tag la soo hadal markuu ku dhaho okay yaa taa waa suubin kartaa tartiib u suubi maalin wiiga horeeto soo soobisa wiiga ku xigto sidii salay haddana 10 daqiiqo kale ku sii dar tartiib jir xanuunka waa istaaga waa la socdaa hooya aniga ahay jir xanuun iyo ilmo noolaga tagay oo iyo gurina la dhahay dhaqa ma fududo laakiin waa la qabsanaa hadda aan la soo qabsaday insha Allah waa la qabsanaa hadda caafimaad leedahay oo jir jimicsi aftarka ku ogol yahay ma sha Allah tabaaraka Allah faa'iidooyin badan aa laga helaa hadii ilaa yara anana soo saari doona mar faa'iidooyinka oo jir jimicsiga leh marka hadda caafimaad leedahay oo suubinaysa oo xanuunkaas oo jimicsiga uu kugu bilaabay tartiib u wad jirka asaa la qabsanayo waa roonaanaysa insha Allah taala is adkay waa laga baxaa waana adkaanayna wixii hilib loo baahnayna waa naga dhaca saa duubmay insha Allah taala is adkeeya marka wax kasta waxa waa adkaysi u baahin iyo dadaal iyo wax dheefkaas markaas la arkaya insha Allah marka maalin wanaagsan jimco wanaagsan hooyooyin oo is adkeeya aniga waa ilaa qabaa ilmo oo is dagaalaya ilmo ooynaaya ilmo jiranayo kor xanuun anaga ah uur la soo yeelnay 7 cunug aan saas ku soo dhalay markii is adkeeya waa laga baxaa insha Allah waa laga baxaya jazakallahu khayr ila socotiin walaalahay waa mahadsantiin kulligiin jimco wanaagsan idin leeyahay ilmaha barta kulliha la iishimiyo tan ugu cusubtay subscribe soo orta fiidiyaasha soo socdaan oo faa'iidada leh iyo kuwa horena soo aragtid insha Allah taala walaalahay inaan idin jeclaa ogaada abaay adigana is adkeeya soo qortay فمس أبسية السلام عليكم على وناكسن